ururadan siyaasadeed ayaa isdiiwaan geliyay 3 bilood ee la soo dhaafay gudoomiyaha guddiga doorashooyinka kumeel gaarka ah ee Puntland Guuleed Saalax Barre ay warbaahinta u sheegay in muddo 3 bilood gudahood ay si hordhac ay isku diiwaan geliyeen 17 urur siyaasadeed muddo 3 bilood ah oo aan soo wadnay diiwaan gelinta ururada siyaasadeed kana soo bilaabanaysay 16 bishii 12aad 2019 kuna ekayd 15 bisha 3aad 2020 waxaa noo soo gabagabaysmay si rasmi ah diiwaan gelinta hordhac ahayd ee lagu sameeyay ururada siyaasadeed ee Puntland waxa ilaahay mahadiisi dhammaystiran u soo gudbiyay codsiyo 17 urur siyaasadeed oo aan qabanay faylashoodii kuwaas oo dhammaantood waqtigii loogu talagalay oo ahayd axad 15 bisha 3aad 5 galabnimo ku soo dhammaystiray inay soo gudbiyaan codsiyadii soo gudbiyaan 17 kaas urur siyaasadeed waxaa lagu sameeyay hubin faylashoodii guddi ayaa baaris ku sameeyay si ay u hubiyaan in ay soo dhammaystireen shuruudihii loogu talagalay ee hordhaca ahaa waxaanu sameynay waxay ahayd in shuruudihii laba aan u kala qaadnay kuna hordhac yihiin oo inta hadda laga rabay ay ahaayeen kuna ay ahaayeen wajiga labaad oo marka inta ka soo gudubta wajiga koowaad ay u gudbayaan dhinaca kale gudoomiyaha waxa uu sheegay in 17 urur siyaasadeed ay buuxiyeen shuruudaha hordhaca ah ee laga doonayay ururada siyaasadda 17 urur siyaasadeed oo dhammaan magacyadooda aad qoraal ahaan hadda la idinku siiyay waxay intooda badan ka soo baxeen shuruudihii hordhaca ahaa gudoomiyaha guddiga kumeel gaarka ee doorashooyinka Guuleed Saalax ayaa waxa uu sheegay oo kale in ay jiraan 4 urur siyaasadeed oo aan wali si dhammaystiran u buuxin shuruudaha taasi oo laga rabo inay maalmaha soo socda soo dhammaystiraan shuruudahaasi dhowr urur siyaasadeed oo ilaa 4 ah ayaa hadda waxa ku dhiman waxyaalo yar oo ka khaldamay iyo sixid yar oo dib loogu celiyay ayagana aan u qabanay muddo 4 bariya in ku soo gabagabeeyaan taas oo ku eg axad 22 bisha 3aad haduu ilaahay yiraahdo 5 galabnimo inay ku soo dhammaystiraan wax laal iyo wixii sixitaan ahaa iyo ka dhimana oo marka guddigu ku celiyay ururadii kale sida rasmiga ah u soo dhammaystiray shuruudihiina ay u dhammaystirayeen waxaanu siinay shahaado ku meel gaar ah shahaadadaas oo ka saacideysa inay ka hawlgalaan dhammaan deegaanada Puntland si ay u soo dhammaystiraan shuruudaha wajiga labaad oo ayadana ka bilaabmi doonto haduu ilaahay yiraahdo muddada u dhaxaysa 23 bisha 3aad ilaa 22 bisha 4aad 2020 inta muddada u dhaxaysa ayaa waxaan rabnaa inay ku soo dhammaystiraan dhammaan wax laale iyo wixii shuruudo wajiga labaad horena aan ugu qaybinay ururadaas waxa ay yihiin shuruudaha wajiga labaad ee la iska rabo tusaale ahaan shirweynihii inay qabsadaan oo halka ay ka doortaan guddigii dhexe iyo markaa ay ka dhisaan qaab dhismeedkoodii ka dhisaan ururadu waxa kamid ah inay goboladii xafiis ku soo furtaan waxa kaloo kamid ah inay ugu yaraan 6 gobol 300 oo xubnood oo ururka ka tirsan oo isku darka 1800 oo marka xubnood ah inay ka soo qortaan dhammaan gobolada ugu yaraan 6 gobol ay ka soo qortaan gobolkiiba ka soo qortaan 300 oo xubin oo taageer ururkooda u ah shuruudahaas oo dhan waxaa laga rabaa inay soo dhammaystiraan ugu dambeyn 22 bisha 4aad 2020 haduu ilaahay yiraahdo kadib waxaa la sii sameyn doonaa hubin iyo xaqiijin cidii markaa ka gudubta wajiga labaad ayaa waxay noqonaysaa cidda markaa isku diyaarinaysa inay doorashadii dowladaha hoose oo qofkii codka ahayd ay u gudbaan haduu ilaahay yiraahdo markaas ayuu soo baxayaa liiska kama dhamaysta ah ee ururada ka gudbay dhammaan shuruudihii isdiiwaan gelinta wajiga koowaad iyo wajiga labaad haduu ilaahay diiwaan gelinta ururada 17 urur siyaasadeed ayaa muddooyinkii la soo dhaafay ka socday magaalada Garowe gaar ahaan xarunta guddiga Cawil Cali warbaahinta goobjoog Garowe.